السلام عليكم maanta oo ay taariikhdu tahay 14 bisha sagaalaad sanadka 2021 waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo warqadaha aqoonsiga danjiranimo ka gudoomay safiirka cusub ee boqortooyada Sweden ay soo magacawday Soomaaliya mudane Par Lingod ugu horeynba danjiraha cusub waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda soo gaarsiiyay dhambaal iyo salaan uu ka wado boqorka dalka Sweden isagoo ka mahad celiyay soo dhaweynta diiran ee uu kala kulmay shacabka iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa sidoo kale uu danjiruhu soo bandhigay qorshayaashiisa ku aadan sidii uu horumarin lahaa isla markaana u dardargelin lahaa xiriirka diblomaasiyadeed iyo kan iskaashi ee ka dhaxeeya labada dal madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa dhankiisa ugu horeynba ugu hambaliyay danjiraha cusub xilkan loo igmaday isagoo u ballan qaaday in shacabka iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ku garab istaagayaan hawlaha loo igmaday ee diblomaasiyadeed waxa sidoo kale madaxweynuhu uu la wadaagay danjiraha cusub horumarka ay shacabka iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya ka xaqiijiyeen dhinaca dib u dhiska dawladnimada horumarka lagu sameeyay dhinaca dhaqaalaha iyo amniga iyo la dagaalanka argagixisada iyo musuqmaasuqa iyo arrimaha doorashooyinka oo uu tilmaamay madaxweynaha jamhuuriyaddu inay marayaan meel wanaagsan waad mahadsantihiin